falaasifadii adduunka soo martay way ku adintay culimaadiinkuna fatwadooda ayay ku bumbuuniyeen mid kasta ereygiisa ayuu laliyay kadibna hore ayuu u socday balse waxay ku sii nagaatay inay ahaato runta qadhaadhe aadanaha ka argagixisay alla ilaahay waa geerida waa aayahay wadaagaan basharka iyo noolaha kale oo idil kullu nafsin daa'iqatul mawt naf kasta inay geeri huran tahay baa eebba qur'aankiisa inuugu tilmaamay noolaha garaad kale waxa uu yahay xilli xanuun badan oo muruga astaan u tahay markay waayaan gacal ay nolosha sama iyo xumaanba soo wada qaybsadeen oo gabagabeeyey jiraalka xilli ay ku qasbayn inay la noolaadaan cidlada iyo ciirsi darrida ka dhintayna ay sugayso xisaabta dhalashada ilaa geeridiisa inta u dhaxaysay dalagii uu beertay adduunka kitaabka midigta ama bidixda loogu dhiibayna uu ku kalifan yahay inuu cod sare ku akhriyo haddaba ka waran haddii dhimashadu ka kaaftoonto urursiga dadyowga aan jecelnahay waaritaankuna saliya muc yeesho aan hurdada ka hambabarno innagaan cidi inaga geeriyoon ma farxad ayaa camiri doonta nolosheenna ma waxaynu noqonaynaa kuwo aan warwar iyo warbaasi hayn mise maalmaheenna ayaa noqonaya kuwo qurxoon oo waxtar badan weli ma isweydiisay su-aashaas ilaa intii aan hana qaaday su-aalo noocan oo kalea kuma ay soo dhicin maankayga markii aan roonaaday aan kala dhaaday geerida iyo noloshu sida ay iskula baratamayaan dhalashada malaayiin qof maalinkii oo ku buuxinaya laabtooda hawada dunida taalla malaayiin kalena ay macasalaameynayaan ifka si ay kaalin ugu banneeyaan dhallaanka cusub weydiintani waxay ku rafaaday laabtayda oo ay ku meeraysatay qalbadayda ilaa iga dhigtay qof ka fakara maxay tahay sababta geeridu ugu lifaaqan tahay jiraalka markii aan bilaabay akhriska sheekafaneedii death with interruptions kala go'i geerida ee uu qoray qoraagii reer Burtuqiis Jose Saramago safxadda hore dhiganaha markii aan isha mariyay ayaan jawaab quman u helay weydiintaydii waxaana yaqiinsaday in dhimashadu ay dhadhan u samayso jiritaanka geeriduna aysan ahayn wax laga argagaxay ay sees u tahay sii socodka nolosha noolaha sheekafaneedda Jose Saramago waxay ku bilaabmaysaa odhaah la yaab leh oo ah kadib cidina ma ay dhiman maalinkii xigay dowladda ayaa bulshadeedu ku soo toosaysa iyadoo aan shimbiri ka dhiman xataa boqoradii ka talinaysay oo fiidkii laga xariiqayay dardaarankeeda intii ugu dambaysay ayaa nafti sii suran tahay oo aanay weli ka fardhan markii la isweydiiyey sida ay wax u socdaan natiijadu waxay noqotay in bulshadii degnayd dalkaasi ay ka adkaatay geerida oo ay hanteen sirta ku duugan waaritaanka farxad iyo dabaaldeg ayay isla dhex mareen markii ay muddo sidaa ku jireen waxaa cirka isku shareertay cabashada kuwa hanaankoodu ambaday ee qorshahoodu ku qotomay geerida iyo nolosha joogsigii geeridu waxa uu galaaftay dadkii dhaqaalaha ka heli jiray tacsida iyo munaasabadaha baroordiiqda meydka hantiilayaashii dheefta ka raadin jiray duqayda howlgabay ayaa iyaguna ku xigay cisbitaalladiisa waxanka masiibada dhaqaale darro iyo macnabeelka dhakhaatiirta ayay iyaguna ka muraara dilaaceen shaqadooda oo ku astaysnayd bukaanka bugsanaya iyo kuwa geeriyoonaya ayaa meesha ka baxday guryihii daryeelka waayeelka ayaa qaylo ka tolay sida cisbitaallada oo kale nolol iyo geeri ayay shaqadoodu ku jaangoonayd balse iminka waxaa arladii oo dhan qabsaday dhowr do-od oo isdhalay intubana ay nooshahay oo ma nolol baa dadka qaar ayaa noqday lafo isi sudhan oo neeftoo keliya ta qaadanaya gabowgii intuu ka tambatay ayay muuqaalkii aadanaha ambiyeen kiniisadihii ayaa lafahooda u yaabay ilan dhaqaale ayay ka raadin jireen nolosha geerida iyo dambeetada ajarka laysku abaalmarinayo sida uu sheegay shakhsiyad ku jirta sheekada Jose Saramago haddii geeri aanay jirin soo bixitaan ma jiro nolol dambe haddii aanay jirinna isla xisaabtan ma jiro abaalmarin janno iyo cadaab la dhahaana haba sheegin warkeeda sidaa awgeed macno ma samaynayaan kiniisadaha iyo goobaha cibaadadu waaritaankii ay u cishoonayeen aadanuhu waxa uu riyo foolxun ku noqday bulshadii dalkaas rabitaankooda geerida ayaa ka sarmaray masiirkan aragga xun ay u soo joogeen waxaanay ka doorbideen waayeelku dhimashada haraggoodan qolfoofka noqday nasasho waarta qoysaskii dadkoodu gaboobeen waxay awooyaashoodu direen dowladaha dariska si uu u dhadhamiyo geerida uu u baayo habeenkii oo gudcura ayay tahriibiyeen hilibka neefsanaya oo si nabadgelyo leh u geeriyooday looguna aasay halkaas arrinta la yaab kale aan ku arkay sheekada Jose Saramago waxa soo ifbaxaya shuftooyin iyo maafiya ka ganacsanaysa tahriibinta dadka dhimashada u baahan una soo celinaya meydka qofka dhintay ehelkiisa si ay agtooda ugu aastaan kana qaadaya qarash ay ku raali yihiin qaraabadu go'doonkii geeridu waxa uu horseeday khalkhal nololeed oo dadka dhaadsiiyey muhiimadda uu lahaa geeridu ma ay noqon orgob laga baxsaday ee waxay noqotay mid la soo dhawaysto mid la dhugto oo lagu raaxaysto sakaraadkeeda waxa uu ka dhigay Jose Saramago sheekafaneediisa mid inaga tusaysa geerida dhan kale inkastoo aadanuhu yahay kii la ildarnaa masiibada dhimashada ee ay dabada ka riixayeen dareennada isburinaya dhan kale ayuu inaga istaajinayaa oo ku saabsan mandiqa khasaaraha iyo guusha xaqiiqada kulamaan walax kasta jiritaankeeda xataa haddii ay kooban tahay baahida loo qabo
sheekafaneedan waxay nagu baraarujinaysaa kaalinta geeridu ugu jirto nolosha ina tabsiisay dhibaato aynu dhibanno u nahay oo aan la'aanteed noloshu tis qaadi karin dareenka cudoon ee aadanuhu u qabo cibaadada eebbihiis nimcooyinka aragga maqalka dhadhanka iyo dhaqdhaqaaqa xubnaha ee eebbay nagu manaystay ayaan qiimo yeelanayn haddii noloshu dheelitiran macno la weydo galladda eebbe ee qoraxdu ka mid tahay waxaad tabaysaa marka ay subixii godkeeda ka soo bixi weydo isbedelada xilliyada guga dayrta xagaaga iyo jiilaalka marka ay istaagaan ayaa qiimahooda garanaynaa nacaybku markuu dunida ka dhammaado inaan jacaylku hana qaadi karin ayaan ogaanaynaa samuhu haddii aanu jirin xumaanba ma jirteen nabadgelyadana laguma raaxaysteen haddii aan dagaal lagu hoobtaa jirin sida ay u jiraan walxo wanaagsan oo qurxoon ayay beddelkeedana u abuuran yihiin walxo kale oo dhammaystira ujeeddana leh gabagabada waxaan ku khatimayaa in jiraalka adduunku uu macno mug weyn leeyahay eebbana inooga khibrad badan yahay siday xaaladuhu noqon ha ahaato mid quman ama qarriban mid wanaagsan ama xun ujeeddada laynoo abuuray waa cibaado maalin ilaahay loo noqonaya ayaa jirto aan cidina ka baxsanayn allah haynaga badbaadiyo hawsha maalintaa xisaab xidhka si qumanna haynuugu dhammeeyo warkeenna